السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا إذن سلامي دمان أصحاب تقييمها يقدرنتا إنغا مدنو مقعيقو وعامر عبدي halkani waxaan rabaa inaan kugu soo gudbiyo dhambaal dheer oo aan u dirayo dhammaan asxaabta sanadkan gali doonta imtixaanka shahaadiga ah ee dawladda federaalka Soomaaliya. insha Allah waxaan rabaa inaan talooyin yaris waxaan rabaa talooyin inaan idin soo gudbiyo si aad ugu aflaxdaan. talooyinkan waa kuwa ay ku aflaxeen dad adigu idinka horeeyay ma ahan keligay inaan soo alifay oo aan soo ikhtiraacay waa wax ku sugan dhammaan dadka ku guuleystay imtixaanaadkii hore. insha Allah imtixaanaadku dhammaantood waa isku wada mid laakiin waxay ku kala duwan yihiin aragtida aad adigu u aragtid sida aad adigu ka haysato bay ku kala duwan tahay. sida la adligeed waxaan maanta halkan kugu soo gudbin doonaa muuqaalkan oo aan kaga hadli doono ilaa iyo 3 mawduucaas oo ah talooyinka ugu muhiimsan inta aadan galin imtixaanka iyo wixii aad sameyn lahayd maalinka aad gasho imtixaanka iyo gabagabada. saddexdaas ayaan u kala qaybiyay. insha Allah midda koobaad haddii aan galo talooyin ku anfacaya marka aad galaysid imtixaanka. insha Allah imtixaankan waa mid aad ku riyoon jirtay waa maalin aad ku taahi jirtay haddii aad xusuusato muuqaal aan ka soo diray soo diray dhambaal ahaan midaas oo warqad la iiga akhrinayay aniguna aan dhambaalkaas soo dirsaday aniga oo jooga aniga oo ku maqan safarkaygii aan ku aaday gobolada dhexe. insha Allah muuqaalkaas waxaan ku sheegay inaan idin soo hambaliyay. sidoo kale waxaa jira muuqaal ka horeeyay oo isagana aan ku duubay mid kamid ah jaamacadaha Soomaaliyeed. insha Allah meeshaas oo lagu casuumay aniga aan ka soo jeediyay halkaas bogaadin iyo markaas dhiirigelin. haddaba aan kugu daalin warka insha Allah talooyinkan midda koobaad waxa weeyaan ku duceyso ku duceyso Allah subhanahu wa ta'ala inuu ku fududeeyo. waa duceysanaysaa maxaad u duceysanaysaa Allah subhanahu wa ta'ala inuu ku fududeeyo. mid kale oo la xiriirta jirto oo ah ka duceyso waalidka inaad ka duceysataa waa waajib laakiin maanta way ka duwan tahay maalmihii kale. laba aan ku sheego maalinkan waxaad adigu u faraxsan tahay farxadtii ugu dambeysay maadaama riyooyinka qaar kamid ay ku dhaboobeen midaadan xasuusan asxaabtaadii kula facahayd kuwaas oo aad isku fasalahaydeen aaway kuwii ku garab fadhiyay aaway kuwii aad isku soo raaci jirteen meel ku ogtahay la qaar way baxeen qaar way dhinteen. Allah subhanahu wa ta'ala fursadan waxa uu ku siiyay si aad ugu shukriso. haddaba alla u mahadnaq waalidkaana u mahadnaq oo markaa ka duceysashadaas aad ka duceysanaysid waa birrul waalidayn qayb kamid ah. insha Allah markaa ka duceysatid waxaa usoo dandegaysaa oo usoo laabanaysaa midda labaad oo ah soo weysa qaado. Allah subhanahu wa ta'ala si dhaba isugu xir alla ka cabso oo soo weysa qaado maxaa yeelay qof aan alla ka cabsan ma weysa qaato. lidaalika masaajida waxa caamir oo kaliya kuwa alla ka cabsada ya shaakiyan hamma alhayati wadiqaha abashir farabbuka qad abana almanhaja man yattaqi arrahmana jalla jalaluhu yaj'al lahu min kulli dhiqin makhraja. wa muuqaal ka horeeyay ayaan ku sheegay fasiradeeda iyadoo waqtigaas laakiin waqti ugu yaraan qofkan ka sheeganayo ciriiriga iyo dayiqa bishaarayso maxaa yeelay rabbiga waxa uu cadeeyay ku cadeeyay cidii alla ka cabsata manhajkiisa alla wuxuu ku cadeeyay cidii alla subhanahu wa ta'ala ka cabsata inuu u farayo albaaba badan. lidaalika waxa laga rabaa adigu inaad alla ka cabsatid soo weysa qaado soo tuko soo duceyso waaridkana ka soo duceyso. insha Allah mid saddexaad waxay noqonaysaa aqri adkaarta. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu inoo jideeyay adkaar aan akhrisanayno waqtiyadeena oo idil maxaa yeelay waqtigeena oo idil waxay ku dabaqan tahay Allah subhanahu wa ta'ala inaynu u noqono adoomo rasmi ah. lidaalika Allah subhanahu wa ta'ala iduka inuu ma keenin illa inaynu ka cabsano maahane inaynu asaga caabudno maahane wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wama aburin insi iyo jin illa inay caabudaan maahane. lidaalika waxaana laga rabaa Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu nagu adoonsaday inaynu la imaano. midda saddexaad aqri adkaarta nabiga sallallahu alayhi wasallam uu noo diiday. lidaalika waxa laga rabaa inaad akhriso adkaaraadka sida adkaaru sabaaxi adkaaru qabla as-salaa marka la akhrinayo bacda as-salaa andahe sidoo kale adkaarta mashruuciga la sharciyeeyay. markan waxa timid iskuulka ayaad waqti hore u soo leebaysatay waalidkiga ka soo duceysatay waa soo weysa qaadatay waa soo tukatay sunno sidoo kale maxaa lahaa waxaad soo akhrisay adkaarta waxa ku dhiman in imtixaanka lagu hor keeno. saddexdaas
markii aad soo samayso dhammaan waxay isugu jirtaa ridaha alle subxaanahu watacaala. waxaa soo raaligelisay maxay waalidka waa kasoo duceysatay waalidka ayagaa raalli ka ah maalinkaas raalli bay ka yihiin way ku cabsanayaan way ku naxayaan waqti fiican bay kusoo yani toosinayaan insha allah marka ridan yani ridaha alle subxaanahu watacaala wuxuu ku xiran yahay inaad waalidka marka hore ay ka raalli noqdaan lidalika maalinka maalmo ka duwan maalmihii kala weeyaan way faraxsan yihiin waalidka. waxaa lagaa rabaa markaad imaatid si degan imtixaankaaga xalay aad soo diyaarsatay ilaa shalay ilaa iyo maalmihii hore aad soo diyaarsanaysay maanta ayaad gelaysaa. waxaa lagaa rabaa inaadan cabsan la ha cabsan ha murgin daciifnimadaysan noloshu kaa arkin maxaa yeelay noloshu ma qaabisho dadka ducaafada ah. ha way jirtaa in imtixaanka laga cabsado waa yani sunan ka mid ah sunnooyinka alle uu inoo abuuray waan cabsanaynaa sax adoo wixii yaqaanaad gafaysaa sax laakiin adigu ha cabsan ha ka cabsan imtixaanka inaad ku dhacayso rajahaaga wanaaji rajahaaga wanaaji rabbi alle subxaana watacaala rajaha aad ka leedahay iyo malaha aad kaga rajeynayso wanaaji imtixaanka waxaa kaaga soo baxaya wanaaji imtixaanka waan ku guuleysan doonaa waxaan noqon doonaa yani first one aan noqon doonaa qofka ugu horeeya waxaan yani waxaa laga rabaa adiga inaad isku kalsoonaato oo aad noqoto yani qof aanan cabsan ha cabsan hana degdegin imtixaanka waa lagu keenay waad aragtay ha cabsan akhri magaca ku bilow maxaa laga rabaa inaad akhriso magaca ku bilowdo bisika ku bilowdo maxay kadibna inaadan cabsan kadibna maxaa laga rabaa in aadan degdegin ha degdegin maxaa yeelay degdegu wuxuu ka ahaaday shaytaan. aniga hadda ka hor waxaan xasuustaa imtixaan aan galayay waxaa la i weydiiyey umuna caaisha radiallahu canha goorta ay dhimatay laakiin anu ma arkaynin يعني التربية هاد مادة أجمل وجعلها التربية لذلك سؤالي ugu dambeysay bay ahayd والله بالله تالله دمان waa ka wada shaqeeyay ilaa hal xaba maana halka xaba iguma taagan xoogo yani isticjaal ba sameeyay waa degdegay maadaama aan degdegay waa ku go'an maadadu waxay ahayd maadada xadiiska qaybta tarbiyada lidalika aad baan u jeclahay aniguna tarbiyada su-aashii waan degdegay maadaama aan degdegayna su-aashii aan aqaanay oo buundooyinka inta ugu badnayd ee saarneyd waa soo hilmaamay degdeg daraadiis lidalika degdegu wax ma faa'iideeyo degdegu ma dhaliyo wax wanaagsan buu kaa dibdhigaa lidalika waxaan kaa rabaa walaal in aadan degdegin ha ku mashquulin wixii tagay sax imtixaanka maanta waa soo gashay maanta waxaa la soo gelayaa tarabiyo iyo biology markii aad ka soo baxdo imtixaanka waxba ha ku mashquulin wixii tagay imtixaanka qaybta hore haddaad ka soo baxdo qaybta kugu dhiman diyaarso waa muhiim midani inta ugu badan qaladaadka aynu sameyno waxay tahay waxyaalo badan oo aynu soo qaladnay aynu ka wada sheekaysanaa sidaa awgeed waxaa dhacayso oo waajib ah in halkaasi aynu ku wada murugoono marka looma baahna in wixii tagay aad ka walwasho waxa soo socda ayaa loo baahan yahay inaad sii diyaarsato intani waa qodobada ugu muhiimsan talaabooyinkii aan ku soo gudbinayay haddaba midda labaad ayaa ah hambaliyo iyo bogaadin waa ku mahad celinayaa waana ku bogaadinayaa waana kugu dhiirigelinayaa shaqada dheer aad soo qabatay lidalika carabtu waxay dhaheen man talaba alculaa sahira layaali habeenay soo jeedaan kuwa macnaha man talaba alculaa qofkii sarreyn doonaa habeen buu soo jeedaa habeen ayuu soo jeedaa adigu waxaad soo jeeday maalmooyin waxaan kugu bishaaraynayaa alle subxaanahu watacaala inuu kaa aqbalay alle subxaanahu watacaala inuu ku gaarsiiyey mirihii shalayta aad beeratay abuurkoodii lidalika alle u mahadnaq waxaa waajib kugu ah labada waxaa weeyaan inaad alle subxaanahu watacaala u mahad celisid maxaa yeelay lain shakartum la aziidannakum walain kafartum ina cadaabii lashadiid haddii aad igu shukridaan waan idin ziyaadin laakiin haddii aad markaa igu kufridaan ina cadaabii lashadiid cadaabkaygu waa mid daran midda labaadna waxaa weeyaan inaad waalidkaa u mahad noqdo maantayto waa maalinkii ugu quruxda badneed nolosha waalidiintaada maadaama ay adiga ay ku soo korinayeen waxbarasho ay kaa bixinayeen waxaa waajib kugu ah in aad maantayda ka dhunkato wejiyadooda adiga oo u muujinaya galad ahaan sharaftooda iyo wanaagooda adiga oo ku ixtiraamaya dhambaalkii dheeraa noloshii quruxda badneed ee ay kula soo qaateen weydii maantayto iyo caawo oo ah habeenka khamiista markii imtixaanka uu ku dhammaado hooyo iiga sheekee maalinkii ugu horreysay ee aan dhiganayay iskuulka waxay kaaga sheekeyn doontaa qisooyinkaadii oo idil
wanaagu wuxuu ku jiraa inaad la sheekaysato waalidka hooyo iyo aabbo waxaan idinkaga mahad celinayaa sida quruxda badan ee aad wiilashiina iyo gabdhihiina aad ugu soo dadaasheen uguna turteen uguna maaragtay talagasheen inay noqdaan mirihii shalayta aad beerteen kuwa maanta soo baxa haddaba hanii'an lakum waan idin hambalyeynayaa alle subxaanahu watacaala wuu aqbalay hooyo sida quruxda badneed ee qaayaha iyo ay ku jirtay waalidtinimada ee aad adigu inoogu soo tarbiyeysay ee aad inoo soo kicinayseen habeenno dhan adika oo ina baraya qaacidooyinka nolosha ugu quruxda badan kuwaasoo ah sabab iyo natiijo waad ku mahadsan tahay hooyo dheh hadeertaan oo u tag oo ka dhunko wejiga iyo gacmaha qadarin ahaan muujin ahaan qadarinta iyo ixtiraamka aad u hayso waalidka midda saddexaad oo ah ugu dambeyntii waxaan ku leeyahay walaal ku soco horumarkaaga oo u tala meelaha ugu quruxda badan noloshaada insha Allah muuqaalkan waa muuqaal aan ugu talagalay in adiga aan kugula wadaago dambaalkan quruxda badan safarka aad u gashay ka dhabeynta riyooyinkaaga iyo qaybihii ugu muhiimsanaa ee noloshaada haddaba dalkaagu wuu ku baahan yahay dadkaagina way ku baahan yihiin wixii lagu gashayna waxaa lagu gashay inaad soo saarto hadda ayaa lagaaga baahan yahay guntiga gabada waxaan idin leeyahay cid kasta oo ka qalin jebinaysa sanadkan waxaan idinkugu bishaareynayaa in aad gaarteen meelihii aad ku taahi jirteen kuna riyoon jirteen haddii aan awoodo in dhammaantiin aan idinku casuumo meel waan samayn lahaa sababtoo ah adika farxadiina weeyaan waxay ku qurxan tahay nolosha markii aad wax wanaagsan qabatid inaad jaza iyo abaal siiso naftaada haddaba maalinka aad ka baxdo waxaad samaysaa hal mid oo ah in naftaada aad dalxiis geyso in naftaada aad la soo baashaasho in naftaada aad ka soo farxiso markaas waxaan kuu balan qaadayaa nolosha inay ku noqon doonto mid aad u quruxda badan sidaa darteed muuqaalkan waa muuqaal aan ugu talagalay ardada dhammaysanaysa sanadkan fasalada form 4ka insha Allah waxaan idin rajeynayaa inaad ka fakartaan qadyadaha noloshiina oo aad quruxsataan oo aad qaabaysataan maxaa yeelay nolol ka qurxan ma jirto qofku markuu naftiisa uu qadyadaheeda uu isaga qaabaysto ballanteenu waa horumarinta naftaada iyo ka dhabeynta riyooyinkaaga intii nool natiijo inoo balana salaaman